السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan dilkiiba mar kale saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa Mustafa Show aniguna waa Mustafa ku soo dhawaada qaybtii ugu dambeysay isla markaana qaybtii shanaad ee barnaamijkeennii simikaadkii Najma sheeko jacayl oo ka dhacday inta u dhaxaysa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Somaliland waxa qoray Mustafa Atam oo ah qoraa degan magaalada Hargeysa halka kala socotaana waa Mustafa Show maxaad samayn doontaa haddii ay Najma noqoto ayay sheekadu inoo maraysay kadib labadii qof oo dib isu helay iyagoo kala jooga Oslo, Norway, Dubai, Imaaraadka Carabta. xiriirku ma la sii wadi doontaa mise waad ka gaabsan doontaa waxaan tiigsaday intii uu Afrika sameynayay sidii aan filanayay waa Afrikii kadib ayaa ila soo hadashay waxaana ay sheegtay inay tahay Najma waxaan ku yiri taas ma dhici karto maxaad ku cadaynaysaa inaad Najma tahay waxa ay tiri wax kastoo aad u baahan tahay ayaan kugu cadaynayaa intaasi kadib su'aalo ayaan ku itixaamay waxa aan weydiiyay arrimo la xiriira xiriirkeennii muddadii 7 sano ahayd ee aan wadnay halkii uu ka bilowday halkii uu ku joogay markii isugu hay dambeysay iyo waliba su'aalo kale oo muhiim ah dhammaan su'aalihii waa iga jawaabtay waxaanan xaqiiqsaday qofta ila hadlaysa inay tahay Najmadaydi wali waxaan hayaa sawirkii ay Burca iga soo dirtay 7 sanadood ka hor waxaan ku dhigay Najma waxaan hayaa sawir aad leedahay haddii aad Najma tahay sawirkaaga ii soo dir waxa ii soo dirtay sawirkeeda waxaan afriir igu noqotay in sawirka aan hayo iyo kana ii soo dirtay ay yihiin kaaf iyo kala dheeri waa laba qof oo aan in yar xataa iska soo shabihin waa laba qof oo aad iyo aad u kala duwan 7 sanadood ka hor sawirkii maskaxdayda ku xardhanaa iyo sawirka ay maanta Najma ii soo dirtay waa mid waa mucjiso aniga qudhaydu ma aanan rumaysan waxa sawirkan aniga oo aan arkin Najma maskaxdayda ku sawiray yaa maskaxdayda u sheegay in Najma suuradan ay leedahay hadda ayaan arkayaa Najmadii aan ka quusan waayay qofka ay tahay waxaan weydiiyay halka ay ku nooshay waxaana ii sheegtay inay Addis Ababa joogto waxaan ka codsaday inay telefoonkeeda ii soo qorto haddii mar kale ayay ii sheegtay inay iska kaftamayso oo aysan Addis Ababa joogin laakiin ay ku nooshay dalka Norway aniga waxa ay weydiisay halka aan joogo waxaan u sheegay in aan magaalada Jigjiga ku noolahay been ayaan u sheegay sababtoo ah waxaan tijaabinayay in ay anoo dalka joogay la soo xiriiri doonto iyo in kale sababtoo ah been ta ay u sheegaan ayaa ahayd in gabdhaha inta badan ay qurbaha ay jecel yihiin inaanay wiilasha wadankii joogin xiriirin ama aanay xiriir la samayn muddo bila ayaan gabadhii si wanaagsan u sheekaysanay kadib waxaan gabadhii ku yiri walaal waxaan doonayaa inaan iskuursano aniga dartaa ayaan wax badan u dayacay muddo dheer ayaan ku baadi goobayay muddo dheer ayaan ku sugayay muddo dheer ayaan ku jeclaa mar rabo waqti intaasi ka badan inaan lumiyo aynu iskuursano waxa igu tiri waa si wanaagsan waan ogolahay waxaad sugtaa 7 bilood sanada 2018 bisha koobaad ayaa sharciga qaadanaya marka intaas ka horeysa fadlan samatar iyo dul qaado waxaan ku jawaabay am sorry iga raali noqo waxaan doonayaa inaynu hadda iskuursano waqti intaasi ka badan ma lumin karayo kuma sugi karayo waxay tiri waad iska kaftamaysaa waa iga dhab ayaan ugu warceliyay waxay tiri Charlie aniga ayaa kugu qanacsan aniga ayaa ku raba aniga ayaa gol inaynu iskuursano ee wax yar uun samatar oo sabar yeelo oo isu walow aan ka biyadiisanaa in guurkaasi ay dib u dhigto haddana maalmahaasi kadib Najmo waa is yara bedeshay oo waxaan fahmi waayay sababta ay sidaas isugu bedeshay waxa iga dhabahayd inaan guursado mar raba inaan waqti aan kale aan jacayl aan meedhada lahayn aan kulmiyo waxaan ka shakiyay in ay nin kale leedahay waxa ay bilowday inay telefoonka iga qaban weydo marar badanna ay ugu dhageysato dareen ayaa i galay marka aan weydiiyay waxa ay telefoonka iga qaban weydo waxay ku jawaabtay hooyo ayaa ila joogta jaamacadda ayaan joogay waxyaalo la mid ah aniga taas ima cuntamaynin iyadana kuma aan filanaynin in mar kale sidaasi ay sameynayso hore ayay ii silcisay intii ay Burca joogtay ee ay isaniftay ayaa dhibaato igu filnayd maanta ma awoodo inaan mar kale dhibaato kale maro waxa aan is weydiiyay Najma miyay kuma weelinaysaa mise waqtiga ayay ka luminaysaa maskaxdayda ayaan xoogaa wareystay uma baahnid inaad gabadh mar dambe u barooratid ayaa maskaxdu igu jawaabtay laakiin wadnahayga ama qalbiga ayaa jawaabtaasi diidan sidan yeela waa inaan iska dhaadhiciyo inaanan Najmo u baahnayn sababta oo ah iima ahan sidii hore ama Najmadu ma aha Najmadii hore hadda waxa kaliya Najma aan ka rabay ayaa ahayd inaan aqal dhisano iyaduna ay tiraahdo aqbal iyo gudoon mar kale inaan xiriir si daba dheeraada sii wado waxay igu noqonaysaa mashruuc kale waa mashruuc biyo xidhanka Ethiopia ee loo yaqaan Abayo oo kale oo 10 sanadood socda xiriirkeenu inuu 10 sano jirsadona wax yar ba ka dhiman markii aan Najma falaadkeedii dambe fahmi waayay ayaan fikiray oo waxaan go'aansaday inaan gabadhan kale iska guursado si ugu yaraan aan uga nasto jacaylka i jilciyay inay Najma iga meeraysanayso markii aan arkay ayaan nafta runta u sheegay xilligaasi aniga ayaa u gubaya ayaa xaaskayga hadda aan qabo inuu xiriir meel fiican noo marayo uu noo socday soo laabashada Najma waxay ku soo beegantay xilli aan gabadh kale xiriir wanaagsan la lahaa waxaana iga go'nayd inaan isla maalintaasi guursado Najma hadalkeeda dhag uma aanan dhigin oo dhag jalaq uma aan siinin Hargeysa ayaan aaday maalmo kadibna waxa xiriir heshiis
una dhex maray aniga iyo marwada aan hadda wada joogno sidii ayaanu isku guursanay walow aan najmo jeclaa haddana igama aysan hor istaagay inaan dhisto nolol kale oo qurux badan duruusta nolosha aan ka bartay ayaa ah in shaqsi la'aantiis aad samaysan karto nolol shaqsi la'aantiisna nolol samaysa aad abuuri karto wax kasta hal shaqsi kuma ay xirmi karaan haddii aan intaasi oo dhan ogahay waxaan adkaysan lahaa maalmihii aan najmo u barooran jiray maalmihii mugdiga ahaa maalmihii najro darteed aan u dhibaatooday maalmihii ay igu dheeldheeli jirtay ee aan bestay iyada u noqday hadda waxaan ka bogsaday boogti jacayl waxaan ogaaday inaan najmo kale samayn karo waxaan muujiyay inaan dhanka caqliga ah ka qaangaaday nolol cusub ayaan galay alxamdulillah aad ayaan hadda u qanacsanahay noloshayda farxadda iyo raynraynta ayaan ku noolahay aniga iyo oorideeda sharfani waxaa dhacday najma inay hambalyada arooskayga ka aragto Facebook waxaan ii soo dirtay fariin u qornayd sida tan Samatrow caawa dhinacayga waa aad ka dhimatay maadaama aad guursatay caawa ayaa isugu keen dambaysa waxaan ugu jawaabay walaal waa si wanaagsan anigu nolol ayaan bilaabay adigana nolol if ya aakhiraba aad ku liibaanto ayaan ku rajaynaya waxay ii gelisay blog ama waa ay xayirtay bilo kadibna xayiraadii ayay iga qaaday waanu wada xidhiidhnay mar dambe ayaanu xidhiidhkeenu wanaagsanaaday ma aqaano waxa ay ii sakhira ama ay igu akhriso laakiin mar kastoo aan najmo la xidhiidhayo aad baan ugu nuglaadaa hadda muddo dhowr bilood laga joogo aniga oo xaas leh ayaa ay isoo xidhiidhisaa aniguna jacaylkii hore ayaa igu soo duxay oo waanu soo dhaweeyaa waxay tidhi jaalle waxaan doonayaa inaynu isguursanno laakiin waxaa jira hal shardi xaaskaaga waa inaad iska furtaa madaxa ayaa i weynaaday gabadha aan dhowaan soo guursaday miyaan furaa ma dhici karto oo maxay gabadhu islaameed aan usoo lugoynaya haddii aan farxadeeda aanan dhammaystiri karaynin ama farxad dhammaystiran aanan siin karaynin maskaxdayda ayaan dib u howlgeliyey fikir dheer kadib ayaan galay waxaa ii soo baxday in xaaskayga aanan furi karin sidoo kalena aan najmana xiisaynayo maxaa tala waxaan najmo usoo bandhigay inaan guursado anigoo xaaskayga qaba nasiib uma aysan yeelan najma inay xaaskayga koobaad noqoto laakiin waxay noqon kartaa xaaskayga labaad arrinta ah inaan laba xaas guursado shakhsiyan anigu aad uma aan jeclayn jacaylkii hore najma ayaan xus uga dhigayaa mooyaane iyadu ma ogola waxay igu sii adkaysay codsigeedii ahaa inaan xaaskayga sharfan furo go'aankayga ayaan ku adkaystay xaaskayga ma furi doono ayaan ugu halceliyey waxaan ku idhi laba mid uun soo gal inaad iska raadsato calafkaaga iyo inaad xaaskayga labaad noqoto waan ku jeclahay oo way ka dhab ugu dambeyn arrintaasi najma ma aysan aqbalin aniguna teeda ma aanan aqbalin goortii aan xaas lahayn ayay guurkayga ka warwareegtay maanta oon xaas leeyahayna waxa ay doonaysaa inaan guursado qalbiga ayaan iska dhahay talow nin miyaa qabay hadda ka hor oo iska soo furtay maxayse markii hore u diidanayd maxayse markan waco wicitaankayga igu dhagaysan jirtay hadda weli xidhiidh aan toos ahayn ayaanu leenahay waa macquul wax dambe inay soo kordhaan eebe khayr ha ka dhigo nabad iyo warsan intaasi ayuu ku soo gabagabeeyey sheekada qoraaga Mustafa Atem oo degan magaalada Hargeysa Mustafa waxa uu inala wadaago kale sheekadani waa dhab waxay dhacday muddo 7 sanadood gudahooda isla Samatar waxa uu ku nool yahay buu yiri dalka Isutaga Imaaraadka Carabta halka najmana ay wali ku nooshay dalka Norway isaga iyo oridiisu waxay isu dhaleen waa Samatar iyo xaaskiisii kale aan najma hayne wiil dhinaca kale najma wali ma aysan guursan magacyada Samatar iyo najma buu yiri ma ahan kuwooda dhabta ah balse cudurdaar uu iga yimid wiilka dartii ayaan sidan u qariyay magacyada dhabta ah ee lamaanaha sidaas isla mid ah dhamaan magacyada qisadan ku jira ma ahan kuwii dhabta ah ee dadka ku xusan sababtoo ah waxaan uga dan lahaa inaan ujeedada qisada idin soo tabiyo muhiim inoo ma aha magacyadu qisadan waxaan idin la wadaagayaa inaynu ka baranno duruus maalin kasta macquul ah oo aynu sameeyno xiriidho iyo xiriidhadaas oo badankoodu fashilma qof kasta ugu yaraan dhowr xiriid ayuu u maraa inta uusan guursan ka hor ma ogi qofka xiriirka guurka uu la wadaagi doono balama ayaynu qaadnaa inta badanna ma oofino balamahaasi intaynu isla wadaagno qisooyin iyo sheekooyin dhab u dhacay waxa inoo inaynu isla wadaagno qisooyin iyo sheekooyin dhab u dhacay waxa inoo fududeynaysaa waaya aragnimo hadda haddii aynu duruus ka baranno xaaladaha ay isla soo mareen Samatar iyo Najmo wixii tala ah ee aniga aad ii hayso ka qora ahaan ka Mustafa Atem ahaan ama si aad u hayso Samatar iyo Najma halkan hoose ayaad nagula wadaagi kartaa emailka ama gmailka qoruna waa mustafa@gmail.com halkaad kala socoteen waa Mustafa Show aniguna Mustafa Xaaji kulanti dambe waxaan idin leeyahay saaxiib fi amaan Allah waxa iga xasuusina barnaamijka simikaarkii Najma kadib inaan idin bilaabi doono sheekadii xiisaha lahayd ee malabka oo uu qoray Cabdalle Ayaanle Artan kulanti dambe sidaas iyo nabad gelyo